marka ugu horeysa horta wasiir waxa weydin mahad celinaya mar labaadka sharaf weyn bay inaan maanta anigoo halkan jooga xarunta PDRC ee Garowe inaan ka sheekeeyo saaxiibkay magaciisu Ilaahay naxariistay wuxuu ahaa Xirsi Magan Ciise Cabdiraxmaan waxaan ku tilmaami karaa inuu ka mid ahaa dadka waxa afka qalaad lagu yiraahdo unique nooca gaarka ah ee firka gaarka ah hadday maskax tahay hadday aqoon tahay hadday af tahay hadday dhaqan tahay hadday diin tahay hadday hal adayg tahay hadday halgan tahay hadday tahay faham marka waxaanu isku baranay waxaan degnay London marka waxaan idhaahdaa maalin uu councilka xaafadan deganaa ee Tower Hamlet ayaa intay soo rareen bay gurigii ugu xigay keeneen Xirsi Magan albaabkii ugu xigay gurigii ugu xigay bay siiyeen isagii qoyskiisa halkaas ay barashadayadu 2002 ay ka bilaabantay ilaa iyo 2005 uu ka geeriyoonayay ودرس بأنه هين صاحب أنه هين مركب حياة عجيب كان حكم إذا وحنقول شيء هبه أول بيننا ساعات عدم شيء كيسنا تبعنا نوين بوهاين أنا نقول هبه أول بوت تجوي تيبو دي كلتم بكرة مركب حولي هبه أنا إيمانية كوي إيمانية ولا بدأ الباب يسبحي كانت هبه أنا كوي إيمانية هبه أنا ضعيف إيمانية بحلو عدالة الدرجة هنا ضدوي تمادها كست سيدي بانو مركب كودني marka aan fasax ama meel kale ku maqanahay mooyaan joogto marka waxaan isku tilmaamaa dardaaranadiisii ugu dambeysay iyo saaxiibtinimadiisii ugu dambeysay inaan anigu ku dambeeyay qoys ahaan aan aad isu dhaxgalay xog badan aad ka sheekeyn jiray oo ama ku mashquulsanaa jiray xilligaas oo maskaxdiisa aad horta marka hore Xirsi Magan in dadku fahmaan baa muhiim ah wuxuu ahaa nin wax badan aqoon badan ku jirto wuxuu ahaa abqariyad badan buu lahaa waxa uu ka sheekeyn jiray fanni kasta oo nolosha ah aad wax ka weydiiso waxaad u baahan tahay qofka sidaa u ballaaran inaad adigu maasho oo aad marba dox kaga keento hadalkood marba su'aal ka weydiiso waxa jiray xilligii leegada xilligii Talyaaniga uu soo gaaray oo wuxuu ku noqday ciidamadii ugu horeeyay kontomaadkii I think dhowri afartanka dhamaadkiisii la qortay gaalka ayuu ka qortay wuxuu ahaa isagu asalkiisu reer Qardhood buu ahaa laakiin reer Mudug buu mudug wuxuu ahaa aabihii baa wuxuu ahaa ciidankii boqorka Cali Yuusuf dabadeedna Hubiyo iyo gaalka ayuu ku dhashay marka wuxuu ahaa reer Mudug asal ah inkastoo qoyskoodu Qardho deganaayeen marka wuxuu ka sheekeyn jiray waxyaabo aad u far badan xilliga hore xilligii SYS uu kamid ahaa xilligii xornimada la qaatay xilligii Mareykanka tagay Columbia University uu ka baxay isagii xaaskiisuba isku jaamacad bay ahaayeen Maria Farax Gooje oo markii dambe xildhibaanad noqotay wuxuu soo noqday leftiis bidixda ama hanti wadaaga oo waliba meel fogday extreme ka gaaray waa ka tagay wuxuu noqday waxa lagu xiray xabsiga Mandheera lagu xiray marka wuxuu iga sheekeeyay xilliga uu isagoo hanti wadaag uu haddana noqday wadaadka ninka sheekha bedelayo heerway waa ku isaga iga sheekeeyay wuxuu igu yiri xabsigaanu ku doodnay nin la oran jiray Sheekh Cumar Hadraawi kan kale ma aha waa nin sheekh oo Azhar iyo ikhwaankiiba aha dabeedna ninkani waa nin hanti wadaag ah socialist ah oo Mareykanka yimi oo dagaal u jooga xukuumadii iyo dawladda Maxamed Siyaadna isku dhaceen ninkana waa nin kale oo ikhwaana oo isagana ay dawladdiisu soo dileen laakiin angal kale oo islaamisation wada kaga jira marka waa laba angal laakiin waa laba mucaarad ودود بدن حبس كمان ديرنا ده وحبس isolated هو ميل جارة كيال adigu wuxuu yiri nimankaas markii dambe saameyn badan ku yeeshay ikhwaanka ahaa ku jiray kadibna jabhad buu noqday oo SSDF buu galay gudida fulintu galay baan filayaa golaha dhexe soo daf buu ka mid noqdaa
dan marka wuxuu ahaa nin taariikhdiisa markaad aragto aad u ballaaran markii dambe burburkii kadib qardhuu degay boosaasuu degay qur-aanka ku xafdiyey wuxuu iga sheekeeyey sheeko cajiibaho wiil dhalinyaraho 18 jira baa ku adkaaday qur-aanka marka sheekhiisii baa ku yidhi qardho war qur-aanka xirsi maganoo 80 jira xafiday adigoo 18 jira xafidi weyda garan maayo markii dambe aan wada deganayn cibaadadan aad ugu aqaanin cibaado badan habeen oo dhan salaad u taagan booha waxa kaloo mucjisa ah afka u malayn maayo qof Soomaali ah oo aan la kulmay oo ka af Soomaali badan kelmad kasto aad weydiiso wuxuu u heli karayay 7 kelmadood oo kale oo af Soomaali ah sidoo u kala dhalinayo sidoo u kala furfurayo sidoo u qeexayo sidoo u sharaxayo waxa laga yaabaa isagoo saacad kula hadlaya kelmad ajnabi ah oo banaanka ka timinaan ku daray afka Soomaaliyeed ma ku baray waxyaabahan runtii aad uga bartay waxa kamid ah isagoo ii bilaabay ayuu xanuun ku yimi oo waxaan isleeyahay dad markii hore 2003 iyo bay heedaan bilowna ee waqti dambe ayaan bilaabnay laakiin wuu baray caruurtiisa oo dhan buu baray gabadha ugu yar Maryam la yiraahdo waa macallimada afka Ismaaniyeed gabadha ugu yareed caruurtiisa iska daa dadka kale sida u qorto you can imagine marka wuxuu khabiir buu ku ahaa farta Ismaaniyeed xirsi magan hal inaan oo ma hadla yiraahdo ayuu ka tagay iyo 4 gabdhood oo waaweyn oo Dr. Carro oo imka dadku TV-yada aad uga barteen gabadha dhakhtarada ah TV-yada ka soo baxda hijaabo ayaan oo aad caan oo iyadana la garanayo iyo Maryam marka runtii waqooyi aad u weyn oo aan walaalo kale aan noqonay oo aan wehel noqonay oo aan aad soo dhaxgalnay waxyaabaha runtii aan xirsi markaad la sheekaysato aad ugu tagayso waxa kamid ah ballaarnaanta mawsuuca waxa faranka lagu dhaho faniyada kala duwan iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha waxa kale oo cajiib ah jabhadihii buu ahaa markii hore SSDF buu ahaa markii dambe aysan buu noqday maalin baa isagoo dahabshiilkii ayaan la kulmay soo kulaa maanta waxaan soo yiri lacag baan soo diray soo kulaa reeri baad u diraysay miyaa marka ma hadiyo masuul maya waagi aan hawlgallada jabhada ku jiray sanamtaan lacag ka qaaday xogayay maaliyadda Maxamed Xaashi marka lacagtii baan qaar hayay marka lacagtii waa in loo celiyo dadkii caruurtii iyo sanamtii khasnadii soo kordheeysan ma jirta hadde waa too late waa 2005 ya 2004 dhamaadkeedii 2005 bilowgeedii marka wuxuu aniga hay deyn bay igu tahay aniga deyn bay igu tahay marka weynaan ku celiyaa khasnadii dhexe Soomaaliland buu soo diray marka uu sheegay waliba magacyadu ku soo qoray wuxuu ahaa nin taariikhda hore aad u haya oo maalintii Cabdullaahi Yusuf la dooranayay baan wada fadhinay 2004 bishii 17keedii dabadeedna waxaan su'aal baan weydiiyay waxaan ku yiri Cabdullaahi Yusuf harsiyo maalin baa ciidan kale oo qoray isku reer mudug baatiin gaalkacya ka wada timaadeen jabhad baa isku haydeen gudida ku wada jirteen iiga war marka muxuu siyaasiyiinta Soomaalida kaga duwan yahay doorashadiisa qudbadiisa waa socota marka wuxuu ku leeyahay kelmad cajiib iga sheego wuxuu ku yiri Cabdullaahi siyaasiyiinta Soomaalida hal wax buu kaga duwan yahay wuxuu yiri waa ninka kaliya ee siyaasiga ee Soomaaliya ee caaw heli kara kun wiil oo dhinta nin kale oo Soomaaliya oo siyaasi caaw kun wiil intuu yiraahdo kaalay oo dhinta ma yeelayaan laakiin waa ninka awood daale wuxuu kala siyaasad baan u nahay wiilano waxa ka dumi kara annagu kala siyaasad baan Cabdullaahi nahay laakiin wuxuu awood u leeyahay caaw kun wiil oo kun kuba ay dhimanayaan oogina dhimanayaan ninkaysu keeni kara jabhadaha wuxuu iga sheegay dagaalkii uu eyl ku tagay isagii maxay xajaadan iyo markay ka soo baxeen xagga Ethiopia ilaa iyo eyl yimaadeen iyo duruufii ay la kulmeen iyo markii uu qardho galay waxyaabaha cajiibka waxa kamid ahaa aan ku bartay xirsi magan wuxuu ahaa dadka kaftanka badan marka daraawiishta ka sheekaysan jirnay marka daraawiishtii reer bariga wixii dhaxmaray ay maalin iga sheegay darigii uu boqor Cismaan
sayidka intuu marti qaaday dabadeedna jidka loo galay dagaalkii xumaaya beergaal agteeda ka dhacay la isku baabay sayidkuna waa kii qalbi jabay jiinleyda waa kii ka tiriyay haddaan boqor jawaabiye man bari uma dabadeedna marka dambena waa kadee sayidku gabayga gudban ku soo daraya najiskii gurta xumaa haddaan gawrac ugu jiiday waraabay ka giigaan u diray gacan salaadeed isagay gargaaro dugaagiiga gooniye haddaan garan gunnaan siin lahaa goori ayaa waa ninkii ciidamada boqorka watay marka gunnada waa halka laga keenay ya waraabihii cunay guray shirwac gunnaan siin haddaan garan gunnaan siin lahaa isagay gargaaro dugaagiiga gooniye marka yacni marka waxaa ka sheekaynayo ayuu wuxuu yidhi reer bari ahoo inuu baargaaliyo inuu ka tegey caluula garan maaye jooga ayaa lagu yidhi nin baa soo baxay niman daraawiish la yidhaahdo nin sayid maxamed cabdilla xasan la yidhahdaa wato boqorkiina waa isdileenoo dad iyo dunyaba waa qaadaya ee xoolaha ilaasho markaasuu yidhi oo muxuu rabaa mise xoolaha lagaa qaadaya markaa ninkii uu dacaydayn jiro wuxuu yidhi ninkii reer beri baa wuxuu yidhi oo maydahaygo xaraartaa daaqahaya ayuu intuu yimaado iska qaadanaya markaasaa la yidhi haa idahaago xaraartaa daaqahaya intuu qaadanaya adaaline marka xirsi markuu ka sheekaynayo yani waxaad dareemaysaa yani waxaad muddaa inuu ku dhex geynaya kelmadaasaan rabay meeshii buu ku dhex geynaya adaaline marka waxaan ka bartay runtii waxyaabo badan waxaa ku weynaa soomaalinimada waxaa ku weynaa diinta islaamka waxaa ku weynaa cibaadada waxaa ku weynaa afka iyo dhaqanka biyo aniga lahaa kelmad ka heli maysid afkiisa markaad cajaladaha uu duubay aragto youtube-ka haddaad ka dhegaysataan laaska daawadayo markuu sharaxayo idaacadda daljir barnaamijyo badan buu u duubay aada u badan magaca rikoorka inay hayaan labadii wixii ka dambeeyey barnaamijyo aada u fara badan ayuu u duubo laaska daawada u badan magaqan inay hayaan iyo in kale bas waan la joogi jiray markay wareysanayaan ka duubayaan marka ilaahay u naxariisto xanuunkiisa ka waran iyo geeridiisaas wuu xanuunsaday waxaa la dhigay dhakhtarka Royal London Hospital dabaqa afraad dhakhtarkan ugu tegi jiray waa la joogi jiray ilaa daqiiqadii ugu dambeysay uu dhimanayay maadaama family-ga yahay inankiisii oo kala noqday family-guna wada joogeen xataa ayaanba daqiiqadii ugu dambeysay timi inkastoo ay sii yaro qarsoodiya u timi marka waxay geeridiisu runtii waxay nagu ahayd xirsi magan ciise cabdiraxmaan geeri aada u naxdin badan saaxiib wuxuu odhan jiray walaal marka markuu walaal kugu yidhaahdo meelbay marka kaanaf walaalkaaga kaa weyn ayuu